wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Jubbaland ayaa daahfurtay sharciga maamulista hantida dadweynaha waxaana munaasabada daahfurka ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada Kismaayo wasiirka wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdirashiid Jirra Qalinle oo munaasabada daahfurka ka hadlay waxa uu sheegay in sharcigan uu soo maray heerar kala duwan ugu dambeynna ay ku guuleysteen hirgelintiisa martida ka socota World Bank martida ka socota SSF iyo Primus ka socota bahda saxaafadda hadalban kuma jiro agaasimayaasha guud agaasimayaasha waaxyaha heer waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa sharaf weyn noo amaanta inaan fursadan helo oo mas'uuliyiin muhiima iyo dhamaan Soomaaliya mas'uuliyiinteeda ama heer dawlad goboleed ha noqoto inay joogaan oo ay nagala qayb galaan barnaamijkan daahfurka maamulka maaliyadda dadweynaha BFM Act oo aanu muddo badan ka soo shaqeynaynay kaasoo soo maray heerar kala duwan dawlad goboleedka Jubbaland markii ugu horeysay waxaa lagu ansixiyay dekreeto madaxweyne presidential decree lagu ansixiyay laakiin shaqo badan iyo hawl badan oo la soo galiyay maanta waxay maraysaa in golihii wasiiraduna soo ansixiyaan golihii baarlamaankuna soo ansixiyo BFM kaas oo aanu rajaynayno inuu kor u qaado xeerar badan iyo shuruuc badan oo maaliyadda maareynteeda waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adda Primus oo naga caawintay dhamaystirka hawshan si kastaba ha ahaatee xeerkan ayaa sahlayay in qofku si madax bannaan u maamulo hantidiisa gaarka ah Bashiir Maxamed Daahir Goobjoog Kismaayo.